يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله ملك السودان كجوكتان وولاشي لملك حسن محمد أيضا لعافماتي براقكم هذا أنت حنصن الله سبحانه وتعالى عز وجل أنت عافمات قبتنا الله سبحانه وتعالى عز وجل وسياديو إن برنامج كاني تحناها إن أستر جركاجة إن مرتي ضمان طبعا مرتينا ولاشي سمية حسن محمد سمية حسن محمد كسود وملك أوفيشيال. ما شاء الله هو ملايسة مجا نسكو إكيه ما شاء الله ولا لي إلهي ترتيسانا. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحان سلامي أصحابتا ملك أوفيشيال وولاشينا سمية حسن محمد ومانت البرنامج كان كعصب ما شاء الله آذان وغفر أحسنا إنا برنامج كان كسو خيب كالوقت في الله. ما شاء الله أديكن sidoo kale aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaya sida wacan ee wanaagsan aad noo soo jiibtay walaashay Sumeeya Xasan Maxamed soo waragtaa horta barnaamijkan astur jirkaaga iyo martida maanta. ما شاء الله horta waa barnaamij aad iyo aad u fiican oo xagga bulshadana wax badan ay ka anfacayso. waxaan rajeynayaa inaad sii wadid insha Allah. إن شاء الله أنا مانك عاجزتونه ولا شيء سميه مالمها نحاك صوبتي وضن كنا أما مالك استوى قبلها مسلمات كجوجان أدون كدافيسة قبلها مسلمات كحجاب كأن قلت كمسيهين أما إسليهين حجاب كهصدع أما وحولي هاي قبل إنه هرمركو قارنو كليتا قبل هذه أو بهانتين السوشيال ميديا سوق شوكولاتة إنه جرك يتقابسوا محاك لطل اللي هاد قبلها كأمسن حجاب إنه هصدع هاي ama inuu yahay midka horumarkeeda ama guulaheeda hortaagan inuu yahay ما شاء الله aad u mahadsantahay waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah horta walaasheeda ukhti fillah waxaad ogaataa xijaabka hadaadan xiran oo Allah subhanahu wa ta'ala amaamirtiisa aadan qaadan inaadan sharaf yeelanaynin meesha rabtid ka gaar yani mustaqbalka laakiin sharaf kuma yeelanaysid waxa sharaf ku leedahay maxaa ku diiday adigoo xijaaban wax walba qaban kartaa social media adigoo xijaaban aad soo gali kartaa oo dadka qayrka u soo bandhigi kartaa dad inkastoo hadda dadkii u bateen social media waxyaalo xun inay ku isticmaalaan siiba gabdhaheena ilaahay ha soo hanuuniyo waxa fiican markii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyo caafimaad inaad ku shukrisid Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay la in shakartum la azidannakum ولا إن كفرتم من عذابي لشديد لكن ما أنتوا حنكد إكنا إن هنكو كفرنا وآلة تيك توكا قوادي إذا عورض إذا قابل إن إسكو وريجسو هاس إستارتو مركب حاليا أنا قبلها بإلهي هنسو بدهنونية أختي في الله وحد أقاتا حجاب كينا تهي آية الله سبحانه وتعالى وكوسو دجيه ونكو أمر إنك حرتت يدنين عليهن من جلابيبهن ودال سبحانه وتعالى marka waxaan ula dardaarmayaa gabdhaha walaalahayga inay xirtaan xijaabka wali xijaabka sharciga aad ma santaa walaashay Sumeeya Xasan Sumeeya dhanka kale hadii aan u jaleecno ma isdhihi karaa gabdhaha waxay ka aamineen xijaabka hadii ay xiran yihiin ninkii ay u baahan yihiin ama maxaa la haye ninkii calafka ay la wadaagi lahaayeen ama ninkii shukaansanayeenba jirkooda ay ka qariyaan macnaha in oo yani gabadhaas hoos u dhac guurkeeda uu ku imaanayo waa sidii aaminsan yihiin gabdho badan maxaad kala talin lahayd gabadha aaminsan hadii ay xijaabato in ay guursanaynin ninkii u baahan tahay ama jaceelkeeda ah horta ukhti fillah waxa ogaataa maanta wax inta badan waxa la arkaa rag oo ku dhahaya waxa rabaa gabar xijaaban been haluu sheegin marka awradaada iyo ziinadaada aad bandhigtid wuu ku dhaha wuu ku amaanaa waa fiicantahay waa qurux badantahay be markaa kasii jeesad qofka ku caanaa asiga waa qoftaas maya qoftaas ma guursanaa uu ku leeyahay qof walba wuxuu rabaa hooyo wanaagsan oo ilmihiisa inuu ku tarbiyo yani u soo saaro maxaa yeelay guriga waxaa mas'uul ka ah aabaha sax waaye wuu maqan yahay laakiin ما هايد أي أقول جوكتا الأم كالمدرسة الله إلى أن هايد مركب وحي كأوابس عنقان قادنا
qof rag walbo cayaar suuq yahay wuxuu jecel yahay gabar wanaagsan inuu gurigiisa keeno marka ha isdhihin walaashada qaaliga xijaabka dhaawadatid يعني مستقبلك ka horjoogsana bal wallahi alcadiim marka gurigaaga ku jirtid ku dhowrsan tahay dahab ayaa tahay qof walba uu ku rabaa sax marka saas ula soco insha Allah aad oo mahadsantahay Sumayo maadaama hadda ay ku soo bateen gabdhihii inay social media soo galaan ayagoo qaaban waliba xijaabkii iska dhigay ee qurux u maleeya mid ugu roon ay tahay mid taraxad xiran mid kalena ay madaxi feedatay ma is dhigi karaa gabdhahaas hadda xijaabkan hadii ay xirtaan heerka ay rabeen waa hadda su'aashan ku weydiin ku soo celinaya heerka ay rabeen social media ka gaarayaan ama ay quruxsan karaan maxay kula tahay adiga يعني markay xijaabka ay wadato hadda gabadha ma xijaabno su'aashu ku soo celinaa gabadha hadda taa ma xijaabno oo waxay xiran tahay gabadha ugu roon waxay xiran tahay taraxad mid kale madaxa u feedan way qaaban tahay ayadoo saas u qaaban yani hadii yani ay isdhaado xijaabka xiro xijaabka daaxirtu waxay ku leedahay social media caan ma kana qanaay follow badan ma helay qof yani la taageersan ma noqonay صح marka ma is dhihi karaa gabadhaas haday xijaabato horta wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qoro way helaysaa laakiin ma is dhihi karaa dadka ayada ku xiran way ku xirnaan doonaan horta su'aashaas su'aal aad iyo aad u muhiimsan horta waxa ogaata wax walba Ilaahay dartiisa hada ugu tagtid oo ugu tanaasud Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaamid ka khayr badan inuu kugu bedelayo صح صح waxa waday sharaa waday bulshada u gudbinaysay maanta hadii ka soo fado bal walaalahaygii khayrka u gudbi Soomaalidu waxa way laba dhinac waay marka khayr wadidna way ku sacabtumayaan marka shar wadidna way ku sacabtumayaan marka adiga ha isdhihin maanta dadkan oo followers badan ama yani dad badan ha ku tixnaadaan in asaas u sameeysid bari kamaan dadkaas waa ka dhimanaysaa waalidka ka dhimanaysaa waxa la bixis waxa way camalkaagi marka ina ilaashatid wax horta waxa qofka bin aadanku waxa lagu baahan yahay waxay tahay inuu horta maskaxiisa ku haayo adduunka maxaa lagu keen adduunka maxaa lagu keen ina alla caabudid aad ka cabsatid imaam Ali radiyallahu anhu wuxuu dhahay taqwada waa afar shay waa al-amal bit-tanzil والخوف من الجليل قفك إنه وحي الله سبحانه وتعالى وسود جي إنه كرخمه الله إنه كعبصده مركا وحول بقى لدرتي سوق تكتي إله سبحانه وتعالى بدل خير قبا كافي عن هذا ما يركل كرجين إله سبحانه وتعالى وكو بدله صح آيات الله سبحانه وتعالى وحوها قفك يعني مؤمن أما مؤمنها هذا يعني ذكر أما أنثى هادو والله إما عمل صالح فلنحيينه حياة طيبة إله سبحانه وتعالى قفك سحونه ليسينا نلاش ماشي وجود بيسي مرك وحول باقبنيسيد هرتا كا هادان على درتيسا waxaan alla muku carooda mise alla subhanahu wa ta'ala ila xisaabtama inuu ka noqdo insha Allah aad oo mahadsantahay walaashii Sumayo waan ka mahad celinaya sida wacna wanaagsan aad gabdhaha ugu soo bandhigtay waanada quruxda badan anna waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga ah quruxdu ma ahan inaad jirkaaga qaabiso quruxdu waa inaad dhowrsoon tahay oo sharaf leedahay gurigaagana aad ku dhowrsoon tahay gabar kasto wanaagsan oo qurux badan waxay ku qurux badan tahay inay dhowrsanaato saale qofka gabadha maxaa loo qariyay oo weli loogu sameeyay xijaab loo geliyay inaa luulta bal ka qaalisantaa luulka banaamaha ma la dhigo Soomaa waa la qariyaa oo meel fiican la dhigaa marka adiga hada qashina iska dhigtid ka waran oo banaamaha iskiitid qiimahaaga hoos u dhacay anaga og rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam intuuna iimaan ka hor gabdhaha in la aasi jiray dadkii adiga shal ku aasi jiray oo qabriyada ku qodi jira maanta waxay ku leeyihiin xuquuq lagaaga tuntay waa ida bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhu muswadda markii loogu bishaareeyo gabar wuxuu noqon jiraa wajigiisa qof madow يعني waxaan lagu bishaareeyay ilaahay kaasa kaaga soo saaray marka gaaladii shal joogtay kuwa maanta joogto waa isku mid walaasheeda mu'minadahay xaq lagaaga tuman حقوقدادن hoos looma dhigin bal Ilaahay subhanahu wa ta'ala kor ayuu ku qaaday saddex jeer ayaan kor ugu qaaday oo ka sareysa raga qiimo badan waa leedahay marka inaad si qiimo tirtid waa laga fiican yahay xijaabkana cizi iyo sharaf ayaad ku yeelanaysaa sidaa tahay oo waxnaha iska bedelin sidaa tahay hadaa tahay qiimahaaga iyo sharaftaada ayaa meel ku gaarsiinayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadaa tala saaratidna
ilaahay wuu kugu filan yahay faman yatawakkal cala allah fahuwa xasbuh allah subxaana watacaala wuu nagu filan yahay ha aaminin marka qof bini aadan oo beri kuu sacabtamaayo berin ku caynaayo 10 qofood hadday saaxiibo kula yihiin 100 qofood col ayay kula yihiin sababtoo ah maba ku daneynayaan adigii xumaanta ku dhex jiro allah subxaana watacaala ka fogaatay ayaa 10 qof kuu sacabtamaysaa berin maxay ku leeyihiin aniga maahane adaa is yeeshay wax walba adiga aad isku samaysid marka ugu dambeyn maxaa leedahay walaashay qaaliga ah والله waxaan leeyahay ukhti waxaa ilaahay subxaanahu watacaala inaan ka cabsano qof walbo ilaahay taqwadiisa horta qofka inuu ku xisaabtamo waxaan sameynaysid cumar radiyallahu canhu wuxuu dhahay xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu intaad bal fadhiisatid maanta maxaa samaysay maanta allahaa naftaada haddiise oo ku xisaabinayn taas waxay la mid tahay adigoo dhintay ilaan dikriga alle maanta laakiin waa aragnaa salaadii 5 iska dhaafay nawaafishii iyo sunnadii iska daayay waxaad arkaysaa gabdhihii 5 salaadood inay ku culus tahay subxaanallah kuwa qaar aysan dukanaynin rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu dhimanayay wuxuu ka dardaarmay as-salaat wa malakat aymaanukum ilaahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam asigoo sakaraad ah wuxuu ku dardaarmay salaada laakiin anaga maanta waxa u bedelay inaan niikino inaan heesno bis inoo ilaahay subxaanahu watacaala adduunka noo keenay lahbi cabad laakiin waxaa ogaataa ilaahay subxaanahu watacaala in loo naqanayo maalinta maxsharka markii la joogo ilaahay uu dhahay aabe kuwii mutakabbirka ahaa aabe markuu dhaho dad aysan hadlaynin markaasuu leeyahay limanil mulku lyawm lillahi alwaaxid alqahaar marka gaaladan hadda waxay rabaan gabdhihii muslimiinta inay guryahooda ka soo saaraan inay ayaga sida gabdhahooda ay yihiin dharka ay ka bixiyaan adiga waxaa leedahay markaasi yacni gabdhahaasi oo gaalada ama waxaa arkaysaa yacni nolosha ay ku nool yihiin sax ayaga adduunyaa la siiyey gaalo waaye adduunkaa la siiyey laakiin aakhiro nasiibkuma an lahan aakhiro waxaa u dambaysa waxay tahay naar laakiin adiga muslim ah haddii aad isku shabahdid gaaladii jannana waa rabaa labadaas meel ma gelayaan inaa naar dooratid waa inaa janno dooratid labadan waxaa lagu shaqaystaa ukhti fillaah adduunkan daarka waxaa adduunkan inaad shaqaysatid aakhirana waa jiso waa qofka laga abaalmarinayo marka ukhti fillaah haddaa maanta xaqa aad ka jeesatid ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kusoo xasharinaya waxay tahay adigoo indho qabin markaasuu ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiiraa qaala kadalika atadka aayaatunaa fanasiitahaa wakadalika alyawma tunsaa ilaan adduunya markaad joogtaaba ilaahay ku caasisay xaqii aad ka dawalatay maalinta aakhirana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kusoo bixinaya adigoo indhala ukhti fillaah waxaan waa adduunyo maanta awowgaagi aabe haa dadkii hore aabe dhammaantooda aakhiray jiraan waa meeshii ayna wada sugayso markaan u diyaar garowna meeshaas ilaahayna ha ka baqno xijaabkeenana si fiican si sharciga ah oo 8 waafaqsan 8 qodob aan u qaadano insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا سمية حسن محمد آدم ومحسن تاي halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeeni quruxda badnaa ee ahaa astur jirkaaga iyo martida maanta intaan ku kulmi doono barnaamijkan laceena waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu